ummadda reer Somaliland meel kastay joogaan dalka gudihiisa iyo dibadiisa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. ummadda jamhuuriyadda Somaliland ee gobolada dalka oo dhan gaar ahaan kuwa ku teedsan xeebaha ama gubanka ay ka mid yihiin gobolka Sanaag, gobolka Awdal, gobolka Sanaag iyo gobolka Saaxil waxaa soo wajahay xaalado adag oo ka dhashay abaaraha ba'an ee ku habsaday deegaanadaas, taas oo khatar weyn ku keentay nolosha dadka iyo dunyadaba. ceelashii iyo ilihii biyuhu way gureen, dhul daaqsimeedkii wuu xaalufay, xoolaha nool oo ah laf-dhabarta dhaqaalaheenna way sii dabar go-ayaan, noloshii dadkuna khatar aada u weyn ayay soo wajahaysaa. cunto la-aan, haraad iyo barakac ayaa ka bilowday hooyooyinkii iyo ubadkii ay dhaleen iyo dadkii waayeelka ahaaba way saameysay abaartaasi. walaalayaal, maanta deegaanada waxaa ka taagan xaalad bani aadamnimo oo adag, waxaynay dhammaanteen inooga baahan tahay inaynu kaga jawaabno gurmad midaysan iyo dareen wadareed ummadnimo oo aynu ku badbaadinayno dadkeenna tabaalaysan. walaalayaal, anigoo si weyn uga murugaysan xaaladda dhiilada leh, xukuumad ahaan aanu dadaal adag ugu jirno inaanu gudanno mas-uuliyadda culus ee iga saaran ilaalinta iyo daryeelka nolosha muwaadin kasta. waxaan maanta si rasmi ah ugu baaqayaa gurmadka abaaraha ee heer qaran oo aynu maanta kula tacaalayno xaaladda sii adkaanaysa. xukuumad ahaan waxaanu diyaarinaynaa qorshe wax lagaga qabanayo xaaladii hore ee ay abaartu u saameysay ay ka mid tahay biyo la-aanta, cunto la-aanta, daawooyin iyo agabka lagama maarmaanka u ah in la gaadhsiiyo dadkaas. xukuumad ahaan waxaanu diyaarinaynaa gurmad isugu jira biyo, cunto, daawooyin iyo calafka xoolaha in la gaadhsiiyo dadka abaartu ay saameysay. dowladda oo keliya kuma filna culayska hawsha gurmadka abaaraha ee inoo taallaa. waxaa loo baahan yahay inaynu caqligeenna, cududeenna iyo cuudkeenna u midayno gurmadka dadkeenna tabaalaysan. sida keliya aynu waxtar ku gaadhsiin karnaa waxa ay tahay midnimo qaran, iskaashi, isku damqasho iyo iskaalmayntii laynooga bartay xaaladahan oo kale. sidaa darteed, ganacsatada, shaqaalaha kala duwan ee dalka, culimada, haweenka, dhalinyarada, qurbo joogga iyo guud ahaanba qof kasta oo muwaadin ah gudaha dalka iyo dibaddiisa waxaanu u diraynaa khayradhaan aan kaga codsanayno inuu si buuxda uga qayb qaataan gurmadka iyo gargaarka aynu wax ugu qabanayno dadkeenna ay abaaruhu haleeleen. aynu sidii caadada inoo ahayd qalbiyadeenna u furno, dhibtana la wadaagno walaalaheen. sidoo kale waxaan khayradhaan u dirayaa deeq-bixiyayaasha, beesha caalamka, hay-adaha samafalka ee caalamiga ah iyo guud ahaanba dalalka aynu saaxiibka nahay inay naga garab siiyaan xaaladdan adag ee dalku galay. waxaan leeyahay caawimada aadna soo gaadhsiisaan wakhtiga ku habboon waxay badbaadin kartaa dad ay noloshoodu halis ku jirto, waxaana soo celin kartaa rajada nololeed ee bulsho jilicsan. walaalayaal, ummadaha xilliyada adag ee soo mara waa imtixaan lagu ogaanayo dadnimada, isku duubnida, iskaashigooda iyo inta daacadda ay u yihiin walaalnimada, muslimnimada iyo qarannimada
ay ku wada abtirsadaan. Waxayna xasuusinayaa waajibkay naga wada saaran inaynu daryeelno dadka tabaalaysan. waxay nagu waajiba xukuumad ahaan aanu hormuud ka noqonaynaa inaynu ka baranno casharo iyo cibaarooyin inaga caawin kara in qaran ahaan aynu dhisno bulsho dad iyo dunyaba adkaysi u leh duruufaha dabiiciga ah ee qallafsan. walaalayaal, diinteenna suubani waxayna bartay in qofka dhibka ka dulqaada qof kale uu xagga rabbi ka heli doono naxariis. dhaqankeenna soo jireenka ahayna waxa uu dhigayaa in bulshadu xilliyada adag baadka iyo biyahaba ay wadaagto. sidoo kale sooyaalkeenna Somaliland wuxuuna tusayaa in ummadeennu ay awood weyn u leedahay marka ay midowdo dhibka soo food saara mid dabiici ah iyo mid kaleba. alle kelidii ayaa awood leh. awood oo dhan isagaa iska leh. in isaga aynu kaalmaysanaa waa waajib maadaama aynu nahay dad muslima. waxaynu isku xidhaynaa ilaahay. waxaynu baryaynaa ilaahay. waxaynu weydiisanaynaa kaalmadiisa. ilaahay baynu ka baryaynaa inuu madar khayr qaba oo soo afjara abaarta ina haysata ina siiyo. marka ilaahay baynu baryaynaa, ducadana aynu badsanno inuu xaaladan inaga saaro. waxaa kusoo gunaanadaya aynu isu naxariisanno, aynu gurmadka ka wada qayb galno. dhammaanteen shacbiga Somaliland meel kastoo aynu joogno gudo iyo dibadba. gurmadka koowaad ama qaadhaanka koowaad waxaan ka bilaabaynaa xukuumadda, madaxweynaha, madaxweyne ku-xigeenka iyo dhammaan golaha wasiirada. waxay ugu tabarucayaan walaalahooda abaartu saamaysay hal bil mushaaharadood. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. marka ilaahay baynu baryaynaa, ducadana aynu badsanno inuu xaaladan inaga saaro. waxaa kusoo gunaanadaya aynu isu naxariisanno, aynu gurmadka ka wada qayb galno. dhammaanteen shacbiga Somaliland meel kastoo aynu joogno gudo iyo dibadba. gurmadka koowaad ama qaadhaanka koowaad waxaan ka bilaabaynaa xukuumadda, madaxweynaha, madaxweyne ku-xigeenka iyo dhammaan golaha wasiirada. waxay ugu tabarucayaan walaalahooda abaartu saamaysay hal bil mushaaharadood. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.